السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيلا تهي وحي هذا العاو هلك الله يورا لها دينع walba ah marka laga soo bilaabo fanaarintii ugu horeysay masraxa furtay ee salaanta caalamka qaadaysay iyo ilaa madaxweyne daahir yaala kaahi daarkiisa wixii arinta ka hadlahaa waa la dhameeyay aniga waxay soo hortay waa ducaa iyo intii hore halka dhigtay ayaa nana dhigay halka uu dhaafin maayo hadalkii waxaan ku noqonayaa ururin iyo naashnash waxay yahay waa ururin iyo naashnash qaranimada Soomaaliya waxay soo martay iyo waxa dhacay iyo waxa inoo waa la yiri war haddaan isku dayo halka maanta ugu mudan in laga wado nin walba waxba dhiba horta anigu waxa laga hadlayo iyo qarannimadan iyo waanu qaldanay iyo walaynaba abaal guday iyo waxa wala qabay madaxweynayaashii hore ee niba meel ka soo qaadayay ee niba meel nimanka soo dhigayay ee difaaca ugu jiray aniga waxa way ugu soo baxay niman jirin oo aan dawlad jirta haysan ayaa isheegay ana ku xukumay adigu madaxweyne ma tiid kuwii hore ka dhintay ayaa rusaysana waa koow madaxweynaha Soomaaliya lixdan bilood u dambeysay maalin walba hadaa maalin halku shalay mid ka soo jeedo lahaa idinka ay wareer social media haya kii horeeyay waxa uu ahaa ka kaca dawladda Itoobiya dagaal waxaan u hanjaa dalka iyaga way boobtay waa la dagaalamayna waxaan leenahay ka noqo inta aanan gacanta ku qaadan shalayna wuxuu lahaa dawladda Itoobiya waxa uu diiday walaalaanu nahay badayda waan u ogolahay xeebteeda inay wadaan ana ogol laakiin aniga hay soo maray halka aan ka leeyahay aniga hadalkayga qarannimada kolban maalintan ka xilka haya ayaa difaaceeda iyo doodeeda iyo yahay arinta igu culusay caawa ee doonayaan yarkeeda waa taa madaxweynaha Soomaaliya iyo inta ku taageersan kulay malaha dadkooda inta aqal taa ku raacsanay xalay horta adduunku sharci u leeyahay waxa la yiri marka la leeyahay dalwada xor ah oo la aqoonsan karo shuruudu leeyahay dhowr ilaa afar shuruud ta u horeysa waxa weeye dawladda markaa joogta ee qaran baa doonaya waa inay dalka oo dhan xukuntaa oo dalka oo dhan amnigiisa iyo arkiisa gacanta ku haysta madaxweyne xasan waa yahay inta la joogtaana way og tahay maanta dawladda xasan waxay xukuntaa oo aan weli gacanta ku wadahayn gobolka Banaadir Kismaayo waa dawlad gaar ah baydhabo waa mid gaar ah oo fargelin karo Jowhar waa mid gaar ah Beledweyne waa mid kale Boosaaso waa mid kale waa intoodii tayarigu isku hayo Soomaaliland saddex afar sano kala maqan yihiin waxay isu sheegtaan waa khalad waa laba dawladda la ictiraafay waa inay dhaqaale haysaa oo ay dadkeeda waxay ku maamuli karto dhaqaalaha hayso weey dhaqaalaha sanadkan miisaaniyadda xamar miisaaniyadeedu waa 1 bilyan iyo 8 baan mooyaya dollar 1 bilyan halka bilyan markaas xagu ka yimid waa dawlad jirtay hadday 1 bilyan iyo badh fariin soo saarayso dawladda xamar ilaa xaqiiqada la eegaayo waa sax waa dawlad dhaqaalaha haysata oo dalkeeda resourcekiisa maamusha oo xuda dhaqaalaha 1 bilyan iyo 797 milyan 350,000 $740 miisaaniyadiisu dalku waa miisaaniyadda boqolkiiba 70 waxay ku timaadaa oo uu ku helaa toogsi iyo qaraf
qarafin weliba aan muslim laga soo ururine masaajidada aan laga soo ururine christianitiga iyo ta yuhuudda iyo ta majuusiga iyo taan cidda ogaaya waadadu laga wacdiyaan ayaa u soo qarafaysa lacagtaa 7% oo marka Soomaaliland marka loo rabo Soomaaliya 600 iyo ka badan waxa soo haraa waa 30%. 30% waxay noqonaysaa isagana 300 iyo waxooy 300 iyo waxooy milyan bay noqonaysaa ila waa imika si u shaqeeya xasan iyo dawladdiisu dagaalka ay Soomaaliland kula jiraan oo islaahay kuma filan wala bariyan kuwa iyo safaradiisa gaalabaxa oo dadka isaga ka soo horjeeda ay raahdaan amniga muqdisho ka cararaya inuu u hooyo waatu farmaajo ku caajirayso uu safar badan yahay xamar saacado dibaddu jawar saacad hadda saacad kale baa leh saddex boqol ka meel maray Soomaaliland oo tiro war xukuma oo qolada ajnabiga ah naareysha qalad ah oo lixda kale dhacay ay raacaan oo ah markii aynu ka baxay qolada ajnabiga tirada waxaan udeeyeen waxaan la qabanaynaa waxay yiraahdeen Soomaaliya marka la eego wixii ay wada lahayd 30% baaneed oo waayo saan u yaraadaan Soomaaliland tahay markii aad soo tagteen lixda kale baarlamaanka iyaguna 9 bay ahaayeen idinkuna 30 ba ahayd lama eegin dadka intii dawladihii ka jiray bariga Soomaaliya ee tii afooyo u dambeysay mar baa la qaaday tirakooda hayso 4 kiiba haylo markii la arkay tira ahaan dadku siday u urursan yihiin waqooyiga meelaha inta badan waa laga beedido waa la xilay soo saaro waayo waxa la haystaa sharciyada ah waxaan u simanaa wax ku qaybsanaynaa baarlamaanka dhexdeedii oo sidii ku yimid dadii caawina laga hadlay haddaba horta ninka ina sheeganaya waa ninka adduunka oo dhan ku kiciyay carabta maxaan ku rahaa Afrika in badan oo Mareykanka soo laga diiday shirka Afrika ee ku musanaabaya hadii la MOU la ogolaado Soomaalida shan Soomaaliyeed oo hubka qaadanayo oo ashaab baa la dagaalamaya la wada gelayayo waxa loo dagaalami doonaa muslim iyo gaar oo Ethiopia oo dawlad gaar oo Christian ah ayaa waxa la dagaalamaya Soomaalida oo muslim hurdaayo toos leh xasan sheekh waana professor waliba dalka soo joogay miyaanu ogeyn Ethiopia maanta muslimka iyo inta diimaha kala istaagay isleeyihiin haddana muslimku wax dheeray ma oga in dadka ku nool 40% in ka badan ay tahay islaam ma oga 30 sano dambeeyay ta masaajid laga dhisay iyo madaaris ma oga shanta inta lagu yeesho 5 milyan ka badan oo Soomaali inay muslim yihiin horumarka ay gaareen inta Ethiopia la dhaqnaayeen 30 sano dambeeyay aanay isagu daba socdo xasan sheekh ma oga in balaadi iyo jawhar iyo Soomareeb mid walba sanad walba ay ka tagaan dhalinyaradiisa rag iyo hablaba magaalo walba ilaa 500 oo arday oo jaamacad u tagay Ethiopia oo 3 sano iyo 4 sano ku soo noolada oo soo noqda iyaga oo ay isugu mid tahay Addis Ababa iyo Xamar ama kaga ammaan badan oo Soomareeb iyo Jawhar inay ku soo noolaadaan maanta u arkaan dal ay jaar yihiin oo ay wada noolaan karaan ma fahamsana odayga professorkii ee maanta waxa ku hadlay waxaan ii sheegay walaalahay hawsha inoo taala ee i'tiraafka waan raacsanahay nin waloo yiri wax walba aan ugu tan i'tiraaf waayo mar hadda lagu leeyahay anaa kula ku xukuma te waxa eeganaanoo yaalo wada hadal iska daayay salaanta inaan iska qaaday nin kula anaa ku xukuma ku yeeranay xaqu salaam midna wayna ogaana Soomaaliland halkeen ka duulay horta markaan i'tiraaf doonay waxaan ka duulaynaa nin walba inuu horta aynu abuuro xaalad dhexdeeda ah
oo gudaheena culo oo safayno waxa qaradaadka ama dhalina ee ninkan hortagaysa ma iskaashano wuu ku qiimeynaya sidoo ku qiimeynaya waa inaad horta adigu marka hore ka diyaar garowda sida ragga horweeyay wixii dhexdeena ana waa in la dhameeyo oo wanaaga laga doono rag baan siyaasiyiintu ka hagto iyagu haagsanaade haddii mikrofoonada aanu ka dhaana ha hagaagsanaan siyaasiyiintu marka la tagana ninkii aad ku heshteen aynu wax u qabano hadduu kii ugu xubaan u taageerayo oo aanu la hadlaynin oonu qabanaynin dee mikrofoon laga yidhaahdaa waxba noqonayso waxayna tahay ereyga la yidhi aynu gudaheena sugayno dee waxa weeye aynu wada hadalno oo hala kala gar qaato oo ninka qaldanow dee gardaraada qaado laakiin hadday tahay siyaasiyiintu heshiiso qaad kalaha lagu raaco waa qaadka la isku raaci maayo qaadku meel u tegi maayo waa la kala gar qaataa taana waxaa leeyahay saasuu baa dadku dee isku raaci karaan laakiin humaaga iyo anaa cadhooday iyo anaa tan doonaya haddii la raaci waayo waan sii cadhoonaya dhoorkaa kugu daari dadweynahuna waa inuu taa kala eegaadee yaa u xilaya yaa u horhooraya yaa wuxuu doonaya yaa wax luminaya dee dadweynaha waa runta u kala sheegaa dadka oo anigu haddaan qaldanahay dadweynuhu daweynaya joogaa warda cagaha dhig laakiin waxaa doonaan samaynaya diintaan jiiraya dhaqankaan jiiraya shaksiyaddaan jiiraya haddana waa in waxaan onayaa hala heshiiyo waxaa lata halkaana si run haloo hadlo hala isugu sheego marka mikrofoonka ka dardaaraya markaynu taa samayno qofkaynu ka duwanno ictiraafku waana qiimanaya waana qadarinaya markaynu intayna isu geysano aynu runtaas u kala sheegno mid kalena waan ii sheegaya malaha ictiraafka meelo badan oo qaladaynu ka fahmay wax weyn oo buura iyo waxaynu cid ka baryayno oo cid deeq kuu siinayso ictiraafku waxa weeye adigu inuu dadku ku qiimeeyo kuu baahdo ilaahayna intaa weyna siiya dalka meel aynu wada ognahay oo maanta adduunka nin waliba u baahan yahay juqraafi kale wada hadlaya dad wanaagsan oo hadday baamushtax tahay iyo hadday suugaan tahay iyo hadday aqoon tahay hal abuurna baa ilaah naga dhigo u fiirsada haddii tacliin la isku tago adduunka oo dhan ilaa waktiga iyaga ilaa imika jaamacadaha adduunka dalkaa doonta tag cid walba marka imtixaanka iyo lagu jiro qofka Soomaaliyeed boqolkiiba 80 dadka kale way kaga firfircoon creativity waayo waxay ku nool yihiin xaalad adag oo qofku isagoo yar ayuu tabargar noqonaya waxaan leedahay dad resilient adkaysi badan dhibaato kasta oo adkaysta oo ka dabaasha oo yaqaan sida u maareeyo oo mararka qaarkood cibaadada ka mid tahay dhaqankeenu uu ka mid yahay marka dhibaatooyinka sida loo maareeyo waxaynu u leedahay dhaqan ahaan rag iyo dumar tusaale siinaya waa la wada qaxay yurubaan tagnay dadkeenii tagay boqolkiiba 80 afkooda ma aqoon dhaqanka ra'yi kama haysan kama bixin meesha rag iyo dumar waliba dumarku ha si adkaaday markii qurbaana tagay waxay calanka u qaadeen waliba hablaha Soomaalidu diinta islaamka direyska xijaaban oo ay ka baqan jireen dawladaha islaamka kala wadan inay ku adkaysteen oo laga fikiraya Mareykan magaalo kasta ka tagay waxa arkaysaa station ama markaad gasho mall dumar Soomaaliyeed oo siday Soomaali ugu labisnaayeen Soomaali shaalkooda u sita oo afkooda ku hadlaayeen oo aan warwarin oo hadday doonaan ka midin gasoo aqoon inama dadkii rag ahaa tagay dad badan baa soo baxay hadday aqoon tahay hadday talo tahay hadday hal abuur dhaqaale tahay inuu awoodaare waa in ka faa'iideysana waxaan nahay talo nin kastoo la hadlaaya inagoo isku kalsoon uu ku qadarinayo aanu tahay taas oo ku ictiraaf tu kala ku daraya ictiraafka shardi kuma xidhna cidda isqabsataan ee wax ka dhaxeeyeen inay iyadu ku hayso ictiraafka marka la leeyahay dawladda idinkaas ee Soomaaliya oo hadda waa ninka cagajidaya ama aan kugu qanacsanay waxa la dhaho waa afgobaad u fiirso dhowr iyo tood dawladda maanta ictiraaf qaatay iyadu waa haystaan kuwii ka soo horjeeday waxa kamid ah Falastiin oo maanta waxa la dagaal ku dhacayo
boqol dowladood in ka badan baa ictiraafsan waxaa ka mid ah Kosovo Serbia haystaan dhowr iyo 9 baa ictiraafsan oo Mareykanku ku jiro qolka kale hadiidee lama oran Serbia oo jimcida qolka ka dhaxaysa ka qaylinaysa ayaa la sixiriyay waxa kamida dawladaha ugu badan ee ugu badan haysta qolada la yiraahdo Saxaraha galbeed 46 baa 70kii ictiraafay iyadoo Morocco ay leedahay dawladdu uga joojiya cid ay ku qaraan kolka raayiga oranaya waxaan u xidhnaanaynaa ku noqdo wada heshiiya waa adigoo yiraahda ninkan gacanta muu iga jabiyay ama nabarkan ugu dhuftay oo waaniga socon leh waxa doonaya in xaqaygi la iga dooro oo aad wada heshiiso oo ku yiraahdo waa arin ka dhaxaysa or wuu ogyahay inaad jaban tahay oo aad sabtaado ku garaacaya ka ciibisay marka caqli ma waxa lagu waaweynaya ee dawladda la yiraahdo dadka wuxuu weeyaan ugu hadlaya marka runta u sheegtana waligood ku sheeg maayeen waxa waa diblomaasiyado meel dhexe ku wareegaysta waxaan taa kaga gamaya oo wixii na soo maray halgan ahaa iyo dhibaato ahaa aan kaga samraya oo anigu caawa aan leeyahay maanta waa meel wacan baynu maraynaa saadaashaan arko ka wanaagsan bir ka wanaagsan baa soo socotay dhawaan waa dhalinyarada aan ka soo horowgay midowgii oo aan dawladdii hore ee madaxweynaha ka shaqeeynin ee tala qaaday rag iyo dumarba wixii ka dambeeyay oo 9kii oo maanta 40 jiro aabiyo hooya waalida oo aan Soomaaliland ma wax kala aqoon dhalinyaradaas ma haydo dadka bilaadaasi way ka dagaal badan yihiin xagga xorriyadda iyo dalka inta ka waaweyn caasimad kasta oo adduunka qoraal bay dhigeen dal kasta oo joogaan waxay u duwan yihiin in aqoonsiga Soomaaliland ay ku qasbaan adkaysiga u maraan iyagu dhaqaalahooda oo dhan ay u horaan waana la wada socotaan waxa adduunka ka dagaal galaa waa dadka istiray ee aan aqoon dawladdii hore iyo xabaab midow leeyahay ee maxaa annaga loo ictiraafay kan lagu qasbay kuwaas oo shaqeynaya markaan arkana waxa aan aad iyo aad u kalsoonahay insha Allah dhawaan doona iyagoo ictiraaf iyo dhaqaalaha horumaray intaba ay sameeyeen waayo waxa la yiraahdaa ninka ay xorasiin dadkiisu siiya marka inuu gobayo nooyo horumar helay dadkeena daayirta ah ayaan arintaan markaan aan aad iyo aad u kalsoonahay intaas aan kaga leeyahay xuska caawa waayo inta ragii ka dhameeyay anigu tamaan taagan ma sheegaya ereyga la yiraahdo emayugu goor baa dhameynaya alxamdulillah dadkeenu say warta u taageersan yihiin iyo sida mustaqbalkooda u doonayaan inay mar uu ictiraafka dawladda horeysa wax ka saan kala aqoonsanay ay timaado malaha saacadiiba intaas telefoon baa lagu weydiiyay arintaas waxay maraysaa oo ay dimaaraytaan in labada dhinacba Itoobiya Soomaaliland ay ka go'an tahay in agreement kala saxo oo iyaga loo bedelo xeer oo hawlo hadda wuxuu qabanayaa walaal inaga waxba dhulkeena yaala aroorta haday qolada ka diyaar tahay in wada diyaar bayno waa dal balaaran dhibaatooyin badan buu leeyahay waxyaalo badan go'aaniyada ku abshiray inaan kaasi ka noqoshada iyo saxsaxadahay حسن شيخنا تحضر كيسي وكان كيسي لكن وقت اللي قبر أيوه واحد سؤال هو فرنتي هاي وقت أنا سؤال بعض تحصل إن شاء الله بدك أقول وقت قاضي كي يقول ده حوالي سنة كانوا سنة دورشة واحد إلى تهاي هدي أين دورشة مركو هرانا قفك لدورنا يلو يجترو بحينه قبكرة loo eego imka waxyaalaha ku cusub hadda Soomaaliya wada qaadeen oo qura ma ahe dawladdii waxa la doonayay in lagu dhiso sida qaranka oo kale oo la yiraahdo baarlamaanka la doorto baarlamaanka nin dawladda yaqaana oo sharciga yaqaana oo aragti dheer leh oo dawlad dhisi kara ilaa waa gudi dawladda in la soo doorto baahay laakiin waxa maxaa dhaca marka la geeyo waxa dadka laga qayb galiyo dadku waxa yaqaana laga qayb galiyo haddii qof imika halkaa uu xanuunsanayo oo la yidhaahdo dee waa dhakhtar meena dee
aynu dee u tashana ninka oo reer loo dhaho dhamaado sabab waxa la sii doono dee tan la yidhaha qalliin buu baahan yahay dee haddii la yidhaha reer hebel shalay bay qaleen maanta ninka hala qalo dee maxaad ugu mahay ma caafimaad iyo ma kacaya wuxuu galay markaa xilkii la doonay in la yidhaahdo maanta reer hebel baa u leh kaal shalay hore reer qurac baa qaatay beritana reer qurac baa maantana qaadanaya deetana reer hebel waaye waa sax dadka soo wada mara dowladda hal isugu yimaado waa dhab xuquuq baa la wada leeyahay laakiin dee reer hebel ha keeno qof waxa yaqaano ila shaqo waliba waa gaaray dhibaatada la haystaa waxa weeye waa inooge dee sidaasi dowlad ku socon mayso qof waliba wuxuu yaqaano qof hagaagsan loogu doono tu kalaba mikala soo baxday oo ilaa halka u hooseysa dowladda hoose kuwa loo dooranaya waa la isqeybin waxa leeyahay haddaynu nahay reer hebel jilaayo sanadkani waa kaayagii ilaa madaxweynaha dee miyaanay ka wanaagsanayn haba lagu heshiiyo cid waliba dee xil ka rabta inay meel u xidhaato maaha intina ahaana cid wax ku qaata maaha inay dhaqan ahaan wax ku qaata maaha oo dadka tala ka yarto laakiin waxaa ka horeeya dee yaa hawshaa qaban kara oo garanaya taana waxaa leeyahay doorashada bal horta marka dadka soo xulayo iyo cidda la dooranaya haynaga hubsato hadhowta inaynaan fardhex ka qaliyin oo marba la odhan waa kala okey kale marka intaa la yidhaha waxaan leeyahay dowladda dadaal adag bay u gashay inay doorashada socoto culayskeeday leedahay ku dhaqaalay leedahay ku nabadgeliyay leedahay ku dulqaad bay leedahay intaaba anagu dhexdana xidhanay waayo xukuumad ahaan waxaanu go-aaminay oo dadkii ciddii aanu la tashanay dan moodaynayna aanu kala tashanay oo kuwa taageero la isku raacsan yahay in aynu doorashada xag alle mooye waktigeeda ku qabano doorashadana waxaynu qaban karaynaa marka dadka u tartamaya ee xisbiya doorashada xisbi ama ururka u tartamaya markay daacad ka yihiin inay doorashada qabtaan laakiin inaanay noqonin hashii geela cuntee cabaaday doorasho hala qabto haddana doorasho lugtaan haynaya waxan waa daahinaya haddee dhici mayso tusaale si aynu u kala nabad galno oo musuq looga cararo oo cid bay khiyaamaysay iyo dowladda sanduuq iga boobtay iyo halkale wax ka aan uga baxsano waxaynu kharash 5 milyan oo loo gelinay in isha bu'deeda la sawiro qof ka socday xisbiyada macalka qaar baa ka qayliyay oo inaad haddaan nidhi xalaal iftiinaan qalano oo waxaan ku maranaanu ka baxano oo durba ka qaylsoo dadahay yeeli mayna oo kaagadalata aayar anigana ii sheegi maysid ma tashanaan maysa adduunka waraaqa u qori soo dadahay waa lagu daahinayaa in lagu baabana doonaya waar isha bu'deeda qofka hala saro waa loo siman yahay ninka maanta dabada qayb ururijinaya haddana mucaarad baa doorasho qaba ilahoo maxaad doonaysaa bari sheeg kaa meel u kala baxaya waa la qabanaya si sharciya loo qabanaya isha bu'deeda in la sawiraa sharciga doorashooyinkay ku qorantay xukuumaddaa la faray inay fuliso si dadku aanay isu arag sharci doorashada haddaad hortaagada adaa cirka roog ku og anigu sharciga waa fulinayn haddaan xukuumadda dhaqaalaha wax kastaa lagu kaxay waa fulinayn taana waa intaa nabadgelyaha lagu codeeyo sharciyada doorashada loo hoggaansamo dee cayda iyo buuqana ninkii caydee ninka afkiisa ku taagan ninka waayeelahay fagaaro ka caytama ama suldaan ahaw ama caaqil ahaw ama siyaasi ahaw ninkii fagaaro ka caytamo ee cid ka maaga ee hadal qadafa yidhaahdo ifi akhraba aday ku dultaaba markaa laakiin dee walaalayaal halaysturana meeshu ib waa la yidhahdaa aynu soo turno waxaa la yidhi beri baa buuq waa jiray berihii intii jabhadii iyo markii la wareysanaayo xabad baa dhacdee war xabad baa dhacaysa xagga masaajidka noori buuri kulaasuu sheekhu masaajidka ka dhacaysa xagga loo carara waar dhaqan xumadii iyo af xumadii iyo intii lalahaa waar dadka u kaadiya hadday kuwii dhaqanka loo ijaartay aanay afkoodii waxba ku dhaafaynin sidee la yeelaya xagga lagu carara dhaqanka yaa saxaya madax dhaqameedkii haddii looga taaglayahay wixii ciyaal suuq ku hadlayay marka maxaa la sameynaya ka yaraana muxuu sameynaya marka inanka yaraa soo waxaa baran maayo soo kuhegan maayo markuu madax dhaqameedka ku hadlayo waxaan afka una soo marin karo habaryari wax ka sheegayo maxay noqonaysaa marka waxaan leeyahay
dee haddii magaca maxramadka dadka lagu caayayo waa cibaaro soo baxday waa inta caytanta inta wanaagsan taagumalihi aad iyo aad baa mahadsan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu